madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta furay shirka wasiirada amniga dowlad goboleedyada oo ay ka qayb galayaan taliyaasha hay'adaha nabad sugidda dowlad goboleedyada dalka. Madaxweynaha ayaa furitaanka shirkan ka sheegay in wasiiradu ay qiimeyn ku sameyn doonaan xaaladda amni kadibna ay go'aamo ka gaari doonaan howlaha horyaala oo ay ugu muhiimsan tahay dhismaha ciidamada isku dhafka ah. oo aan isu geyno ciidan isku dhafa samayno aan wada hawl galno maanta hadii galmudug iyo Puntland oo ku dayasho mudan arinta gaalkacyo intay dhisaan oo sida fadhigan la idinka rabo ay tahay inaad qorsheysaan isla meel dhigtaan tirada ciidanka goobaha مثلا saldhiga hore u noqon karta ilaa waxa ciidanka inuu isku tababar isla qaato waana ciidamada daraawiishta ee deegaanada ay leeyihiin Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo culayska ugu badan ee shabaab meeshu ka jira waayo qoladaas kor jirtay qaraabadan hay muduga waa dhul banaan oo meel lagu gabado ma laha moogta laakiin annaga labadan dawlad goboleed culayska saaran waa dhul kayn ah wabi ah duur ah culays kale badda ah oo aan qarsoodigeeda leh si walba culayska u leeyahay marka in bal annaguna inta labadan stateena la isu keeno oo wasiirada iyo taliyayaasha ay isweydiiyo war xageen hawlgalkii Jubbada Dhexe way maqan tahay shabeellada hoose dhibkaas ka jira galad waxana ka jirta Jubbada hoose kana jirta bakool waalownahay oo intay xudur iyo u jiraan bay sidana jirta qaabkeen u shaqeynaayo ciidan isku dhafayntaan sameeyno xageen bay soo dhignaa seen hawlgalaa maxaan yeelaa xageen hawlgalka ka bilowna saraakiisha see lagu soo xulaa ciidanka qolo walba wax intee leeg baa laga rabaa waxaan u maleynayaa waa shaqo badan oo idin taala wasiirada iyo taliyayaasha meeshaan fadhiya inay ka go'aan gaaraan soo dhaweeyaan qorshe cad ka keenaan ka bacdina lagula noqday isteediyada iyo qolo walba ciidanka looga baahan yahay xataa waxaad geli doontaan hubka laga rabo inay keenaan ciidanka la isku dhafayo. madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa mar labaad sheegay in doorashada Jubbaland ay waqtigeeda ku dhici doonto. Ismaaciil Bashiir Warsame, warbaahinta Star, magaalada Kismaayo.